markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aad dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe abubakar is yidhi hijrood dhulka xabashida iyo meelahaas ka qabo maku ka baxa meel barkil ghamaad la yidhaahdo markuu marayo ayaa waxaa la kulmay ibnu dughina nin la yidhaahdo ninkani waa odaygii qabiilo qaarna la yidhaahdo mushrikiina qabiilo gaaleed ayuu yahay sultaan ama ugaas ama caaqil waxaynu sheegno ninkii baa wuxuu ku yidhi abubakar buu gartay war abubakar ayna turiidi ya abubakar buu yidhi xagaad ku socotaa abubakar wuxuu yidhi akhrajanii qawmi tolkay baa isoo saaray maka kamaan baxeene tolkay baa isoo saaray dabeetana waxaan rabaa dhulka ilaahay inaan iska socdo rabbi caabudo saa'ix inaan noqdo saa'ixa waxaa la yidhahdaa berigii hore waxaa jiri jiray dad cibaado isaga baxo safra oo meel ay u socdaan oo gaari aanay jirin iska dhaqaaqa un waxaan rabaa buu leeya inaan saa'ix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tago ile tolkay isaar buu leeyahy ibnu daghina wuxuu ku yidhi abubakarow adigoo kale nin la saaro ma tihid macquul maaha yacni abubakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahy sababtu waa maxay fainaka tuksibu almacduum watasilu الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق wuxuu ku yidhi adigu waxaad ahaan jirtay dadka aan waxaysan qof wax siiya waxaad ahaan jirtay dad nin qaraabada xidhiidhiya waxaad ahaan jirtay qofka culus nin culayska ka roga waxaad ahaan jirtay nin martida soora waxaad ahaan jirtay mashaakil oo dhan nin dadka uga gargaara abubakar markaa maxaa lagu sifaynayaa qof naaficaad bulshada ku dhex ahayd baa la leeyahy qof wax tara oo bulshadu wixii u baahan ninkani waa nin gaaleed kama warramayo aakhiro iyo dadkaad hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramayaa waxtarkii adduunyo saa daraaddeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib ilxaq oo dhan dadka ugu gargaara baad ahayd saa daraaddeed nin la bixiye ma tihid buu leeyahy ibnu daghina weedha uu ku leeyahay abubakar waa weedhii khadiija ay u daliishanaysay nebi maxamed nebinimadiisa khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyuu ku soo degay koowaad wuu cabsaday isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le iddada oo ay ka khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin nebi maxamed haddaad tahay balaayo arki maysid bay leedahay waana waxyigii ugu horreeyey waayo maxay sidaa u leedahay dhaqankiisii bay ka warramaysaa intaan abubakar lagu sifeeyo kale ku sifaynaysa waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkaan waxaysan wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo wanaaggaasi sameeya qof wanaagsanna wahal jazaau lixsaana ila lixsaan de qof wanaagsanna alle subxaana wa tacaala dhib ma tusiya bay leedahay idan ama abubakar ha noqoto ama nebiga ha noqoto calayhi salaatu wasalaam waxa loogu tilmaamayo inay dad waxtara bulshada ku dhex ahaayeen oo mid waynu isla qarsanno dee diin inay dadka ugu yeedhayeen oo aakhiro oo ah waxa muhimka ah waayo adduunka wax kastoo aad ku soo mara waa wax yar adduunka waxaad joogtaa waa 50 60 70 sannadood marka cimrigaaga la eego nololeed waa inta inaha ugu yar bay ka mid tahay si aakhira tegi oo aan laba dhimanaynin qofka aakhiro sababtiisa ilaahay kugu badbaadiyaa waa kaaga nafci badan yahay dunida ciddii wax ku tartoo dhan waayo dunida waxay ku tareen waa wax 60 sano un lagu badbaadaa bay ahayd haddiiba ay wax weyn ku tareen laakiin qofka aakhiro ku badbaadiya waxaad ku badbaadda kuu sheegay ama kuu tilmaamay ama ku tusiyey noloshaadii dhabta ahayd buu badbaadiyey cadaab ilaahay buu kaa badbaadiyey nolol aan dhammaan lahayn
ayuu khayrkeeda ku tusay sharkeedana kaa badbaadiyey idan qofka muslimka ahi waa qof dadka inuu badbaadiyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ku dadaalaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo gurigii aabbihii uu jiifo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu u xanuunsanayaa marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi aطic abalqaasim maqal wuxuu nebi moxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii waktigaa noolaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaaye ka soo horjeeday muxuu abujahl culamaa'i taarikh waxay soo naqlayaan inuu lahaa reer banu hashimi annagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeen waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax waloo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahy nagamay badinin haddaan reer banu makhzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynin abijahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayey suu reeruu difaacayuu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso o aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaq u diray nebigu uu akhriye looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo 14 su-aalood ama 13 su-aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii o dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana uu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar quraa la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayo un mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa ilaane siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riixi mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nebi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aطic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraabaa ashahaatay islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahi kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaala ah buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaha maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miyaa leedihin mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqaysa yani materialkunbaa ka fekertaan waxay dadkan inaa badbaadisaan hadduu kaa soo hor baxo qof bini aadan oo gubanayo dab sudan yahay maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad demiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo hor baxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad demiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaa soo hor baxo god daba ku socdo maxaad yeeli lahayd meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socdo maxaad samayn lahayd waad ka qaban lahayd xataa haddaanad ka qaban karin waad qaylin lahayd war ka joog baad odhan lahayd
waayo waxaad ka naxaysaa qofka bini aadamku inuu meesha ku dhaco kuwa naarta kusii socda waa sidaa dadkan aad arkayso ee gaalnimada kusii socda waa indhalaayiin meel adagna waa ku socdaan waxay inaad diinta u sheegtaan oo anfacdaan aakhiradoodii iyo adduunkooduba markaasuu anfacmaya wiilkaa yar nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dadaalayay inaanu gaalnimo ku dhimanin dabeetana intuu gurigoodii ugu tegay isagoo bukoo jiifa ayuu wax u sheegayay innaguna kuwii gurigeenna joogay baynu wax u sheegi kara laanahay kuwii gurigeennaba joogay daa inaynu gurigooda ugu tagnee ayaynu wax u sheegi kara laanahay idan ayuha alaxiba qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu qof naafica noqdo qof wax tara inuu noqdo